haddana waxaan kusoo dhaweyneynaa ogaas faarax cabdi sheekh oo beesha bimaal ogaaska beesha bimaal asigana aan kusoo dhaweynaya insha allah falitadabada mudane. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هل كان waxaa iskugu yimid odayaal ka watirsan labada beelood hadda la sheegay beesha direed iyo beesha jariir weyne odayaashoodii oo haddii ilaah yidhaahdo muxuu ahaa si haddii ilaah hordhaca iskugu yimid insha allah waa shir hordhaca waa shir socon doono haddii ilaah yidhaahdo waa shir haddii ilaah yidhaahdo muxuu ahaa markii koowaada markii labaad mar saddexaad mar afaraad socon doono insha allahu waxay maanta ka shireenna waa wax haddii ilaah yidhaahdo deegaanka ku saabsan jubbooyinka maadaama odayaal jubbooyinka kooban ay yihiin waxa ay maanta haddii ilaah yidhaahdo iskugu imaadeenna waxaa weeye in haddii ilaah gacmaha la isqabsado in la midoobo oo marka ugu horeysa horta dadkan maanta isku yimid beelahooda ay midoobaan marka labaadna haddii ilaah yidhaahdo beelaha jubbooyinka oo dhan ay u horseedaan inay cid walba sidaas ay u midowdo si guudna markii dambe loo dambeeyo in lasu wada yimaado khilaaf wax ma taro khilaaf wax uu taraya ma lahan khilaaf waa laga dhergay maamulkii hawre hadduu meesha ka baxay waxaan leenahay dadka reer jubbaland haddii ilaahayda gacantaa isqabsadeen dowladda federaalka oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay u horeeyaan waxaan leenahay gaabis badan baan dareemaynaa gaabis badan oo dib u dhacan dareemaynaa waxaan rabnaa arrinka jubbooyinka haddii ilaah yidhaahdo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dardargeliyo haddii ilaah yidhaahdo insha allahu dadka reer jubbaland ay gacanta isqabsadaan annagu maanta meeshaan joogno waanu bilaabnay labadan beelood haddina arrintooda waa socon doontaa ilaahay idinkiis meelo dheerna waa la gaarsiin doonaa insha allahu markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad markii afaraadba ma noqon doonto wuxuu noqon doonaa insha allahu mid aan rajeynayno in haddii ilaah mid lagu guulaysto oo danaha insha allahu dadka ka dhexay ay ka tashan doonaan idin ilaahay hadalkii waan dheereeyey insha allah waxaan leenahay guul iyo gobonnimaan u rajeynaynaa jubbaland insha allah asalaamu calaykum. aad buu umahadsan yahay suldaan faarax cabdi sheekh beesha bimaal oo ka tirsan beelaha direed insha allah. waxaan mar kale kusoo dhaweynayaa suldaan aadan maxamuud garas asigana ka mid ah ogaaska wardaa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين horta waxaan rabaa waxaa mahadda iskale ilaahay goynaa waacidka ahaa ee halkaan maanta nasoo kaan keenay waxaa kaloo rabaa inaan mahad u celiyo odaygii guryahan lahaa ee ahaa ogaaska muxuu ahaa neero ee sida wanaagsan inoogu soo dhaweey ayaan maal labaad u celinayaa haddii aan ka gudbo waxaa weeye shirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay deegaanka jubbooyinka ayaan ku saabsannahay dadkan waa dadkii deegaanka ahaa rasmiga ah oo jubbooyinka u dhashay waxaan rabaa laba arrimood yar inaan ka hadlo mid waxaa weeye horta waxaan leeyahay reer jubbada hoose reer jubbooyinka ilaahay gaweyna wacadka culeyska nahaaya allah ka kor qaado aada iyo aad bay ugu liitaan meesha waan ognahay waxaan ka dhacay waxaan rabnaa sabarkeeda in la yeesho oo aanu sabarro ayaan ugu baaqayaa jubbooyinka tan labaad waxaan rabaa ololaha socdo ee ah muxuu ahaa ay wado dowladda in aanu taageersanahay oo aan jecelnahay in ay hor loo sii galo oo la dardargeliyo waxaad moodaa waxoogaa arrimihii ay ku bilaabatay inay waxoogaa yar qaboobeen baan moodaa maanta dhibka haysto jubbooyinka meel uu haysta soomaaliya malaha dowladda waxaan ugu baaqaynaa sida loogu gurmaday gobollada kale in loogu gurmado gobollooyinka jubbada hoose taas dowladda annagoo aada iyo aada u taageersan awaamiirteeda iyo fulinteeda iyo shaqadeeda aan ku ictiraafayno taasu waa taas tan labaad ee kale waxaa weeye shirkan maanta wuxuu u furan yahay deegaamada gobollada jubbooyinka
nin kasta uu kasoo qaybgali karaa ma aha inaan dadku dulmayno waxaa waye aytiinkeena iyo deegaankeenna iyo dadnimadeena aan ooga tashanayna waxaan kusoo dhaweyneynaa nin kasta ee ah jubbooyinka u dhashay aad baan ugu soo dhaweyneynaa in ay nagu soo biiri doono waxnaan wada qabsan doono ayaan muxuu ahaa ayaan rajayneynaa maanta taariikhdu waxaa waye 22 bisha abriil 2022 waxaan leenahay arrintaas ayada waxaan jecel nahay inaan hor usii wadno talooyinka aan badino aanu ka tashano aytiinkan dambe waxaan usoo dhaweynayaa dowladda federaalka waxaan leeyahay arrintaas wax badan ayaad moodaa waxoogaa in ay gaabis uu ka muuqdo arrintaas in gobolka jubbada hoose waxaan ku baaqaya dowladdana aan muxua ka codsanayaa in dhaqso loo gaaro haddii aan muddooyinka dambe la gaarin meeshaasu cagabarar iyo dhibaato ayaa ka soo socota intaasna waxaan leeyahay dowladda ayaa lagu baaqaya arrintayda waxaan kusoo gabagabeynayaa shaqo wanaagsan guul wanaagsan isku xir wanaagsan ayaan kusoo gabagabeynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كاسي وحا سلطان آدم محمود جراس باشا ورداء إن شاء الله